Hello, kusoo dhawaada mashruuca koowaad oo dhammaystiran oo aan ku diyaarinay luqadaha JavaScript, HTML iyo CSS. Muuqaaladii ugu dambeeyay waxaan ku diyaarinay asaasiyaadka luqadaha JavaScript, HTML iyo CSS. Maantana waa saddexdii oo la isku keenay. Waan ku diyaarinay game yar oo aad basic u ah. Waa game aad la dheeraysa kombiyuutarka, xarash iyo madaxa. Adiga laftaada gamekan waxaa ka heli kartaa inaad ku dhufato linkiga yaala description-ka ama faallada koowaad. Haddaba gamekan sida uu u shaqeeyaa, kombiyuutarka waxaa la dheeraysaa xarash iyo madax. Kombiyuutarka wuxuu soo wadaa qiyaasaysaa xarash miyuu soo wadaa mise madax buu soo wadaa, haddana kuu soo wada sileeda buu soo wadaa baad dooranaysaa. Kabacdina waxaa arkaysaa inuu soo wada in kale. Okay, bal aan fiirino. Tusaale ahaan kombiyuutarka waxaa qiyaasaya haddana soo wada xarash. Xarash baad doortay. Kombiyuutarka xarash buu keenay. Meeshii zeroda ahayd hal bay isku bedeshay yacni. Markastoo aan waafaqo kombiyuutarka wuxuu soo wado +1 baa helayaa. Hadduu i khilaafana -1. Xarash kale haddana soo wada. Yeah. Mar labaad baa qiyaas wuxuu soo waday xarash labaad baan doortay. Maanta madax buu soo wadaa. Uu khilaafo. Xarash baadana mar saddexaad doortay. Saddex hal baa laga jaraa. Okay, madaxaan doorto. 0 wuu khilaafay. Madax kale -1. Xarash aan kasaga laabto. Okay, 0 -1 wuu idla mar haddana. Okay, aan fiiri. Oops. -3 buu maranayaa saddex jeer buu iga badiyay. Minus Yo, soo laabte. -3 -2 iga soo celi. -1 0 0 yeah. Okay, tamam markaan. Yeah. 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 Soo celi. Okay, game saas u shaqeeya. Markastoo aan refresh ahana wuu soo bilaabaya 0 ka soo bilaabaya. Xarash mise madax buu ku weydiinaya. Gamekan dhisana marka wuxuu ka kooban yahay HTML iyo CSS iyo JavaScript oo awaamirtaan bixinaysa. Ama meel lagu dhuftay waxaas. Muuqaalada ugu dambeysay markaan qoraynay HTML ama CSS ama JavaScript waxaan isticmaalaynay editor online ah oo website la yiraahdo Stackbot inta aadna editorkiisa uu noo diyaariyay ku qoraynay. Laakiin maanta waxaan sameynaa editor anaga gaar noo ah. Baa la soo degaynaa kaasaan isticmaalaynaa. Haddaba anigu ii soo degsan yahay oo hore igu soo degsanaa laakiin adigaan ku tusaya sida loo soo degsado. Google-kaaga waxaa ku qortaa VS Code. VS Code ku qor. VS Code markaa qortid website-ka koowaad kusoo bixi doona ay ku qoran tahay Visual Studio Code. visualstudio.com ay ku qoran tahay. Ku dhufo. Kabacdina editorka la soo deg. Editorkaas la soo deg. Tusaale ahaan oo kale Mac baan igi saaran laakiin halkaan ka bedeli kartaa Windows, macOS ama Linux kaa rabtana aad dooratid. Editorkan kuu soo degaya haddaba. Markaa la soo degtay editorkan aniga xirtood waa la soo degay. Waxaa kuu soo baxaya marka editorka furtid yacni waxaa kuu soo baxaya editor calaamadan laba kuu soo baxaya marka ku dhufatid calaamadaas. Marka ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya pagekan welcome kuu soo baxaya. Haddaba pagekan way meesha ku qori lahayn. Intaana marka qoraalka bilaabin. Editorkan waxaan ku daranaa waxyaabo yar yar oo noo fududeynaya codeka inaan qorno. Meeshaas ku dhufo afarta box dul saaran extensions ay ku qoran tahay. Markaa ku dhufatid meeshaan ku soo baxay search. Marka waxaa ku qodhaa extension la yiraahdo Prettier qor ka koowaad ku soo baxaya oo ay samaysay Prettier.io install la soo deg. Wuxuu kaa caawinayaa inaad HTML-kaaga si wanaagsan u qortid. Markastoo aad qortid oo aad safe dhahdid wuu isku ka hagaajinaya. Haddii kala fogeysay haddii meel khalad ku qortay dhag isku hagaajinaya. Waxaan kala u baahnay hal mid oo kale oo la yiraahdo live server. Live server ku qor live baan qoray. Okay, live server qor ka koowaad ku soo baxaya 24 meeqa 36 milyan ay download garaysaday oo sameeyay qofka ay ku qoran tahay magaciisa Rick Day ay ku qoran tahay install la soo deg. Isna wuxuu kaa caawinayaa inaad HTML-kaa qortay si fudud aad browser-kaaga ugu kicisid. Okay, marka labadaas samayso done you're good to go. Inta ka badan oo baahnid. Okay, kabacdina waxaa ku jirta meeshaas file ku dhufo. Ama intaad file ku dhufan waxaad tagtaa kombiyuutarkaaga desktop-ka tag. File-kii aan wax ku samayn lahayn baa ku diyaarinaynaa. Kabacdina new folder samayso. New folder-kaaga waxaad doonto la bax. Aniga tusaale waxaa la baxaya maanta. New folder xarash baa la baxaya. Game-kayga magaciisa waa la yiraahdaa xarash kasta folder ku jiro. Kabacdina waxaa ku soo laabataa meeshaadii file-kaan imow bartaan imow
waxaad doorataa koodka markaa fol dhex joogtid studio codeka visual studio code markaa dhex joogtid kan iga soo baxay waxaa ku dhufataa meesha file ay ku qoran tahay file kabadana waxaa ku dhufataa open folder ku dhufo kabada waxaad tagtaa desktopkaaga ani desktopkada ku dhufanaya intaa waxaa ka raadaysaa marka fileka hadda aad samayso marnaa folderka hadda aad samaysay folderka hadda samay maxaa la dhihi jiray xarash baa la oran jiray asaga ku dhufo open markaa xarash open dhahdid xarash buu toos kugu furayaa folder maran buu toos kugu furay haddaba folderkaas samaynay folder maran buu ahaa meeshan welcome ay ku qontay iska xirtan alaabta kor iska tago iska xir haddaba folderkan wuu marnaa waxaa rabnaa inaan faylashii u samayno meesha kood ku dhufo new file meesha ku qoran tahay balaaska ku dhufo kabacdina waxaad samaysaa faylkaaga html-ka ahaa waxaa u bixisaa index.html index.html u bixi waxaa u baahanay sidoo kale file kaloo css sidoo kale mar labaad ku dhufo waxaa ku qortaa styles.css qor styles.css waxaa u baahanahay file javascript iyo saddexaad ku dhufo waxaa ku qortaa scripts.js saddex file baa samaynay mid waa .html midna waa .css midna waa .js waa html css iyo javascript saddexdaasaa samaynay haddaba waxaana keentaa html-kana keen html marka saa u nimaano waxaa qortaa ereyga doc qor waxaa kuu soo baxayana ku dhufo marka saa ugu dhufatid wuxuu ku siinayaa boilerplate html yaroo laguu sii diyaariyey intii asaasiyaadka ahaa ciwaanka iyo waxaa u baahnayd oo laguu sii diyaariyey maalinka dhigta markaan qoraynay html-keena meeshaa ka bilaabeyna oo kaa body baan ka bilownay meeshaa ka bilaabeyna oo kaa laakiin maanta waxyaaba kala noola socdo waxaan kale oo baahan inaan sharaxno waa inta ugu badan waa waxa headka ku dhex jira meesha waxa ku qoran oo dhan waa headka waxa ku dhex jira waana metadata waxa la yiraahdo metadata waxa la yiraahdo waa wax browser ka caawinaya inuu html-ka aan qorayno si sax ah u tarjumo haddaba uma baahna sharaxaadiisa khalaas halkaasaan ku disaynaa hal mar aan qorno marka hal waxaan qorno tusaale ahaan oo kale uu shaqeynaya si aan u aragno waxaan qoraynaa hello kaliya aan qoraynaa intaa markaa qortid waxaan rabaa inaan kusoo bandhigo browserka anoo isticmaalaya chromeka anaa soo bandhigo waxaa qoray haddaba waxaa dhahaya tusaale ahaan oo kale meeshii markii aan imid meesha hoos taala aan yaraysto xoogaa si fiican loogu arko okay waxaan ku dhufanayaa meesha go live ay ku qoran tahay haddaadan markii download garayn extensionkii la oran jiray live server go live-kan kuu soo bixi mayo haddaba waa u baahan tahay extensionkan download garaysid haddaa go live-kan ka weydid meesha adoo download garaystay right click taabo kabacdina waxaa dhahdaa open with live server haddaba go live-ka aan aado go live marka saa u dhufto starting buu soo qoraya kabacdina wuu soo kicinaya filekii hadda aan sameeyey hello baan ku qoray oo uu soo bandhigo gamekii waa ka markii aan dheeraynay window kale wuxuu igu furay hello meel ay ka qoran tahay haddii aan hallowda bedelo haddana wuu isbedelayaa tusaale ahaan oo kale waxaan ka dhigayaa tusaale ahaan oo kale hello world wuu isbedelay soo jeedin hello world haddaba marka si aan uma kala gudgudbi karno mar shaashadaan tag mar kalena shaashadaan tag maanta kuma wadi karno sidaa darteed waxaa rabnaa labada shaashadoodba inaan hal mar isla keeno ama labadan baan isla keeno application isticmaalna aan shaashada isla keeno windows sidaa darteed kana noo yare kana sidoo kale noo yare shaashada u kala bar u kala qaybi kabacdi waxaa dhahdaa toos u wada isticmaal okay let's go marka wixii halkan aan ka samayno halkan degdeg uga soo baxayaan yacni uma baahnin markasta inaan refresh raaco waxaasna waxaa naga caawinaya live serverkan download garanaya halkan haddaa save kaliya iraahdo intaa wax bedelo tusaale meeshan hh intaa iraahdo save and all khalaas degdeg halkaa uga soo baxayaan waxaan ku sameeyo haddaba maanta waxaan u baahanahay waxa ma ahayn tusaale ahaan oo kale iga yara yare kan ii weynaa sidoo kalena dhankan waxaa jooga iga yara yar sababtana uma baahnin saa usoo dhaweyso okay haddaba uma baahnin hello world waxa yiraahdo waxaa u baahanahay inaan gamekan sameeyo gamekan waxaa arkaysaa inuu ka kooban yahay alaabta dhan inay ku jiraan box haddaba boxka aan sameeyo boxka waxaa dhahaya magaciisa waxaa la yirahdaa diff waa box diff ah waxaana u samaynayaa magac la yirahdo container class la yirahdo container classkan dhowr wax buu iga caawinaya waxa ugu weyn uga caawinaya waxa weeye hadhow css markaan ku xirayo inaan magaca ugu yeerto tusaale ahaan markaan rabo inaan border u sameeyo inaan balaciisa xadido inaan dhererkiisa xadido inaan backgroundkiisa caddaan ka dhigo background
kale asagoo xoogaa madow yar ku jiro haddaba magaca u samaysanaya waxaa dhahaya container maadaama kii lagu wada jiray uu yahay magacaasa igula qurux badnaaday container magacyo kale u samaysan kartaa container haddaa hadda safe dhaho kan xagga ii soo mari haddaa hadda safe dhaho waxba soo bixi mayaan total waxba soo bixi mayaan sababta container waxba kuma jiraan container waxba kuma ay jiraan containerka waxaa doonaa gelin karnaa intaan waxba gelin waxaa arkaynaa ani gamekayga caadiga kor waxaa ku qoran xarash laakiin ka hadda samayna waxaa ku qoran document haddaba bedeli karnaa kaas maxaan dhahaynaa halkaas meesha document ku qoran tahay titleka dhexdiisa wax bedelinaa magaca u baahnay tusaale ahaan xarash baa maanta u bedelayaa xarash markaa dhow iyo way isbedeshay degdeg isku bedeshay xarash meesha dad isku bedelaysaa sidoo kale intaan horey u socon oo aan html-keena totally qorin aan isku xirno html-ka css-ka iyo javascript html-kana waxaa rabaa inaan ku xiro labadan ku xiro oo aan dhaho html-ka waxaa badbedeli kara labadana badbedeli karta haddaba marka koowaad waxaad tagtaa meesha titleka ku qoran tahay headka dhexdiisa meesha titleka ku qoran tahay korkiisa tag halkaa tag titleka korkiisa hadda jooga waxaa ku qortay ereyga link kan koowaad kuu soo baxay markaa link saa qorin ku dhufo alaabtaasa kuu soo qormaysa href meeshaas ay ku qoran tahay koodka dhexdeeda waxaa ku qortaa css-kaaga magaciisa css-kaaga magaciisa muxuu ahaa styles.css css-ka khalaas waa xirtay maxaa ii helay waxaa ii helay javascript-gii javascript waxaa timaadaa diffka markii aad samaynay containerka hoostiisa yani bodygan korkiisa inuu meesha u saraysa kadana waxaa qortaa script keliya script waxaa kusoo baxaysa markaa dhowr waxaa kusoo baxaya kaa ugu hooseeya script src ay raacsantahay ku dhufso markaasaa u dhufatid meesha yaro haddana kuu furmi doonta koodkeerka waxaa ku qortaa scriptiga magaciisa javascriptiga magaciisa marka maxaa bixinaa anagu scriptis.js baa bixin khalaas gitko haddana waxaa bilaabaynaa marka hawshiina toos bilaabaynaa html-kan horey ka bilaabaynaa haddaba html-kan wuxuu kooban yahay marka waxaa arkaynaa inuu ka kooban yahay haddaan refresh nidhaahno meesha ay ku qoran tahay xarash mise madax computerkana weydiinaya xarash mise madax ayaa soo wada iyo meel lagu soo bandhigayo inta jeer aan gafay ama inta jeer aan sheegay iyo meel lagu soo bandhigayo choice-kayga fiir markaa doorto waxaan doorto halkan kasoo baxaya haddaa madax doorto halkan madax kasoo haddaa xarash ku dhufto halkan xarash kasoo baxaya iyo labadii option oo ii yaalay haddaba aan ka bilowno halkaas koowaad kaa koowaad aan qorno haddana kaa labaad aan qorno haddana kaa saddex aan qorno haddana kaa afraad aan qorno okay kaa koowaad waxaan dhahaynaa wuxuu ku dhex jiraa waan kasoo qaadanaa h1 ku dhex jiraa kan h1 baan kasoo qaadanaa h1 taa waxaan siinaynaa magaca la yidhaahdo halkan waxay isku bedeli doontaa fiiri markaa mid ku dhufto computerku wuxuu doortay halkaa isku bedeli doontaa marka koowaad marka ku dhufto marka labaad marka ku dhufto fiiri computerku wuxuu doortay marka xarash baa haddana doortay waxay isku bedeli doontaa haddaba aan siino class name la yidhaahdo computer choice aan siino magaca dadbaa siin kartaa maadaama wuxuu computerku doortay halkan ay kasoo bixi doonto computer choice baa iskaga bixinaya waxaana ku qorayaa marka koowaad waxaa ku qoran intaan waxba laga bedelin dib waxaa ka bedeli doonta xarash madax kusoo qori doonta javascript laakiin marka koowaad refresh markaa idhaahdo daqiiqada koowaad waxaa ku qoran xarash mise madax haddaba aan ku qorto xarash mise madax madax iyo calaa su-aal raacsan xarash mise madax iyo calaa su-aal raacsan markaa qoro khalaas toos buu soo qormaya waxaa noogu xoga aan tagno meesha waxaa noogu xoga counterkii kii tirinayay inta jeer aan gafay ama inta jeer aan sheegay counterka asaga aan ka dhigo diff caadi aan ka dhigo aan dhaho waxaa had marka koowaad yaala zero meeshan zerodaa soo baxday counterka magaca aan siiyo waxaa rabta sababta waxaa rabaa hadhow inaan maamulo css-kan aan ku maamulo javascript-kan aan ku maamulo haddaba magac hadda aan siisto aan dhaho magaciisa waxaa la yihahdaa counter waa kii tirinayay waxaa iigu xoga waxaan dhageysaa sidoo kale aniga waxaa doorta meesha kasoo bixi lahaayeen waxaa dhahdaa waxaa u bixisaa mid kale diff kale oo dhaha waxaa samaysaa diff samee waxaana ku qortaa calaamad su-aal baa marka koowaad calaamad su-aal baa ku qoran calaamad su-aasha meesha kasoo baxaysa sidoo kale aan magac siiyo si aan hadhow maamuli karo magacaa siinaya waxaa weye my choice dookayg waxaan doorta meesha kasoo bixi doona weye waxaa noogu xoga khalaas iyo labadana box aan gelinayno waxaan sameynaa diff la yidhaahdo choices baan sameynaa
class baan siinaynaa diffkan waxaan dhahaynaa waa choices baan siinaynaa magaca choice dheeraada siinayno kabacdina waxaan dhahaynaa waxaa ku dhex jira laba xabaa kusii dhex jirta laba diff baa kusii dhex jira diffka koowaad oo ay ku jirto madax iyo diffka koowaad madax baa ku jira waa kan cagaaran madax baa ku dhex qoran hadda taas save gareeyo fiiri meesha waxaa kasoo baxaya madax kaliya soo baxaya waxaan rabaa inaan siiyo labadooda oo midka madaxan iyo xarashkanba isku magac baan rabaa inaan siiyo maadaama isku style yihiin isku sina hadhow loo maamulayo isku magac baan siinaya si aan hal mar u wada maamulo degdega aan mid kasta u baahnayn inaan gaarkiisa u maamulo isku magac baan siinaya waxaan dhahayaa tusaale ahaan madaxa waxaan siinaya magaca la yidhaahdo choice khayaar kan kalena tabtoo kale magaciisa siinaya waaba koobiyeynaya exactly toos baa u koobiyeynaya waxaan dhahayaa meesha madaxa ahayd xarashka keliya waxaada weynaa xarashka maxaa soo baxaya madax iyo xarash daba yaala soo baxaya haddaba taqriiban htmlki waa intaas waxaa laga yaabaa inuu aad kula foolxun yahay kanuu aad u quruxsan yahay kanuu aad u qaabdaran yahay exactly waa isku midka htmlka waxay kula duwan yihiin keliya waa css-ka haddaba css-ka aan tagno si aan ooga waxaa hadda aan samayna ooga dhigno noocaan oo kale ooga dhigno haddaba nagee css-keena faylka css-ka toos nooge marka hore waxaan aragnaa markaa meeshaan nimaano waxa koowaad oo aan arkayna waxa weeye in background-iga guud iyo background-iga square-kan aan samaynay ay kala duwan yihiin kana waa caddaan toos yahay kana waa caddaanka wax yar ka duwan yahay haddana aan bedelno background-iga guud yaa weeye waxa guuda lagu wada dhex jiro waa bodiga kan yarka square-kaana waxaan dhahaynaa waa containerka yareyn doona hadhow oo ka dhigi doona aan intaa kaliya qabsado haddaba kan guud waa bodiga aan bedelno bodiga background-igiisa aan bedelno background color aan doorano kabacdina background colorkaa soo doortay waxa weeye aan oo kale mid la dhaho f2 waa soo doortay markaa dhaho fiir safe markaa dhaho fiirso waxa dhaca markaa safe saa u dhaho safe wax yar bisbedel anuu isbedelena waxaa ku arkaysaa tusaale ahaan kale maanta taa ka dhigo tusaale meesha aan white ka dhigo tusaale aan blue ka dhigo saas kusoo bixi lahaa laakiin kama aanan dhigin kalarka kalaan doortay markaa safe dhahna saas kusoo baxay ool caddaan buu ahaa wax yar bisku bedel haddaba taasi waa intaas waxaana geysaa bodiga wax kale ka bedelmayno containerkiina gee oo ah kan lagu wada dhex jiro kii aan containerka markii oola baxnayna gee container baa usoo bixinay waana kana container magaca container oo bixinay waxaa tagtaa magaca container la yidhahdo containerka isaga waxaa rabnaa dhowr waxnaa ka bedelno inuu intuu legahay bedelno inaan background-iisa caddaan ka dhigno inaan waxyaalaha ku dhex jiro o dhan dhexda isku keeno dhowr wax baan rabnaa inaan siino haddaba marka waad balaciisa aan bedelno aan ka dhigno 400 pixel halkan laakiin 400 pixel buu hadda noqdo uma jeedid laakiin sababtaa background-igiisa u eg waxa ka gadaalaya u eg hal mar aan background-iisa sii bedelana si aan u aragno wax meesha ka dhacaya background color aan dhaho background colorkiisa waxa weeye white caadi wey waa kaas 400 pixel intaan ka dhigan soo haat 400 pixel tan kuma ka dhigo ilaa darbigu haysta 400 pixel markaa doortana wuu soo yaranaya intaas imaanaya haddaba intaa keliya ma ahan waxaa rabnaa inaan kor kasoo durki dhahno iyo geesahaba kor waxaan dhahaynaa margin inaga la isticmaalno kor waxaan dhahaynaa waxaa kasoo durkisaa meeqa 80 pixels kasoo durki baa dhahaynaa geesahana auto yacni si isleeg uga soo duro geesaha wixii kaaga banaanaada dhinac keliya kasoo fogaana si isleeg uga soo duro intaa markaa safe dhaho fiir waxa dhacaya korna 80 pixel buu kasoo durkaya geesahana si isleeg buu uga soo durkaya okay waxaa rabnaa inaan samayno haddana waxa ku dhex jira inaan dhahno iga yara durka hadda darbiga ku dhegsan yihiin qoraaladaan darbiga ku dhegsan yihiin iga yara durkaan dhahaynaa waxaa u samaynaa haddana padding baa u samaynaa 20 pixels ka durkaan dhahaynaa 20 pixels bay ka durkayaan oo darbiga lagu dhegsanaa haddana way ka durkaan qoraaladaas soo jeeda waxaa u samaynaa background-iga markaan intaas samayno hal wax baa noo haray inaan dhinacyadan soo xoodno soo yara xoodno fiiri edgeskan way soo yara xoodan yihiin laakiin keenna waa midi ku mid soo kale haddana aan soo xoodno mar waxaa saynaa la yidhaahdo border radius kaas tag waxaa dhahaynaa waxaa soo xoodaa 20 pixels taqriiban hadda wuu noo soo xoodnay bilaay dadka kaasna waa intaas wax kale ku dari mayno kasoo baxayna
okay containerka inta soo baxnay maxaa kaloo ka duwan meesha maxaa kaloo meesha yaala containerka wuxuu koowaad ku kooban yahay waa sida dadka hta noogay laftigeeda aan wax yar ka bedelno wax badan oo baahan inaan ka bedelno sababtoo ah taqriiban way diyaarsan tahay wax yar baan ka bedelaynaa marka waxaan dhahaynaa hta qoraalkeeda dhexda geeya tan centerku yaalaa fiil qoraalkeeda dhexda geeya kalarkana wax yar ka bedel dhexda geesa u dhahaa text align center baad oranaya text align center dhexday tegaysaa qoraalkeeda waxaa laga yaabaa kan madow kuu leeyahay laakiin madow wax yar buu ka bedelanaya sida darteed madow ila yara fool xumaaya sida darteed madow wax yar ka bedel aan dhahno kalarka qoraalka kalarka meesha ku dhex jira aan ka dhigno lambar aan u bixiyey kalar aan siiyey magaca masiin aan soo doortay kalar yaa 333 lix jeer wax yar buu isbedelaya adaa ujeedin wax yar buu madow ka fajisanya haddaba h1 wabillahi tawfiiq intaas uga soconaynaa yaa noogu xoga meeshan waxaa noogu xoga counterkii kii wax tirinayay baa noogu xoga haddaba counterkii nagee counterka markaasaa u tagno counterka magaca u bixinay counter buu ahaa magaca kan wax noo tirinaya zerada meesha ku qoran tahay magaca ula soo baxnay wuxuu ahaa counter buu ahaa sida darteed counterka laftigiisa noo keen counterka laftigiisa noo keen marka waxaan dhahaynaa alaabta dhexda keen text align center tabtii oo kale tabtii heshid oo kale dhexdu imaanaya zerada dhexda imaanaysa kabacdi waxaan dhahaynaa counterka farta noo waaweyne kana durkii waxa u dhow farta noo waaweyne waxaan dhahaynaa font size baa isticmaalnaa font size waxaan dhahaynaa waxaa ka dhigtaa tusaale ahaan 36 pixels 36 way weynaanaysa soo jeed sidoo kale waxaan dhahaynaa xoogaha laga yara durko margin sababtoo ah geesis waxyaaba kale ku samaysmaya sababta xoogaha laga yara durko 10 pixel waxaa laga dhigan dhahaynaa xoogaha laga yara durko kor iyo hoos xoogaha looga yara durko counterkana waa intaas taqriiban waa intaas waxaa inoo xoga haddaba counterka waxaa inoo xoga anigu waxaa doorta meesha kasoo baxayaan xarash baa doorta kan xarash kasoo baxaya madax baa doorta kan madax kasoo baxaya haddaba meesha u bixinaynay my choice meesha u bixinaynay marka koowaad waxaa ku qoran calaamad su'aal magaca siinayna wuxuu ahaa my choice haddaba my choice aan qurxino aan dhahno my choice tabta u qortay dad u qoran iska inimayso tabta magaca usoo siisay deed waxay rabtaa ka bedesha taas css kan shaqeyn mayo haddaba my choice maxaa uga baahanahay waa qaabadan waxaa u baahanahay kow inuu circle noqdo background digsi wax yar aan ka bedelan circle si aan uga dhigno waxaa u baahanahay marka koowaad inaan isku ballac iyo isku dheer ka dhigno ballaca waxaan siino inaan dheerkana siino haddaba aan siino tusaale ballaca 150 pixels aan siino dheerkana tabtoo kale aan siino 150 pixels heightka jooga 150 pixels backgroundkiisa aan bedelno intaana circle ka dhigin hadda waa kan waxaan samayn halkan u joogaa backgroundkiisa aan bedelno backgroundkiisa aan bedelayna waxaan dhahaynaa backgroundkiisa waxa weeye background color f9 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 haddaba wuu isbedelay soo jeed hortaas wuu isbedelay laakiin weli waxa ujeeda waa square haddaba hadda waxaan dhahaynaa waxaa ka dhigtaa circle ka dhig baan dhahaynaa circle ka dhig waxaan dhahaynaa marka sida loo amro waatan ereygii border radius laftigiisa dooranaysa laakiin meesha awal pixelska waxaa dooran jirtay maanta waxaan dhahaynaa 50% baa dooranaya circle buu noqonayaa wax kale haddana na qabsaday oo ah calaamad su-aalkii ku dhex jirtay inay ka dhex baxday total iyo banaanka ay ka tagtay meeshan calaamad su-aalka waxaa adeegsanayna saddex amar oo wada socda amarka koowaad markooda waxba qaban mooyo laakiin wuxuu kuu fududaynayaa labada amar oo dambe inay shaqeeyaan waxaa dhahaynaa display felix amarka waxba hadda qaban mooyo total waxaa isbedeli maayo marka safe loo fiirso total waxaa isbedelin laakiin wuxuu caawinayaa labada amar oo dambe inay noo shaqeeyaan bal u fiirso justify content center على سؤال شفير ويسود وش أمر كان justify content center وكعاونية هنا horizontally وحي center كريسي هذا نوع أنواع vertical إنها center وكان هذا حدا أي تمام أمر كلا ذاك سينا align items center align items center boom بالله توفيق وعلى ما هلا وحنا نوع فرت إنها وين إنه كل جودنا وحنا عن إحدى كان أنت نوع صعت على circle إن عن إحدى سلك هنا نوع حرتي طبعا حدا هنا إحدى سأو كنا بكوال حدا هنا تصل هنا كلا margin baa adeegsanaya kor waxaan dhahayaa waa 0 kor iyo hoos laakiin geesaha auto
boom bay soo durkaysaa. Waxaa noo haray farta inaan waaweynaan aan u hartay. farta si aan waaweynaan waxaan dooran ereyga font baan isticmaalanaa font size. Salam font size-ka waxaa ka dhiganaa meeqaan ka dhignaa 48 pixels. 48 pixels. fartii waa waaweynaatay. waxaa noo haray inaan farta kalarkeeda bedelno. madow tiqa weeye laakiin ciwaankaan rabnaa u yara ekaysiino. sidaa darteed wax yar ka bedel oo waxaa dhahdaa colored. waxaan dhahdaa asla kalarka markii dooranay 333 waxbaan iska bedeli mooye waa madow wax yar ka duwan. haddaba taqriiban taasna sidaasaan ku dhamaynaya. taqriiban kan wax yar buu ka duwan yahay kii aan markii samaynay wax yar buu ka yara duwan yahay laakiin anyway saa aan u socono tana waxaa inoo haray labadii choice baa inoo hartay. labadii choice baa rabnaa halkaan kan fiirisay kala yihiin. background waa cagaar, farta waa weyn tahay, si isleeg bay u qaybsan yihiin. haddaba intaan ka shaqeyno waxaan u bixinaa tan boxka ay ku wada jiraan labadan waxaa la yidhahdaa choices. markii waa la soo baxnaa choices. haddaba waxaan rabnaa choices aan dhahno marka koowaad intaana midkaan iyo kan midna si gaar ah ugu samayn. kow horta dhexda keen. si aan dhexda keen u dhaho ereyga adeegsanayo ereygani caadi ah saddexdii amar wada socotay. display baan ka bilaabay marka Felix. dhexdaa keeni muuyo laakiin isdaba gelinayaa keliya. labada amar oo soo socotana waxay keenayaan dhexda. justify content aan dhaho justify content center hadaa dhaho kan kale uma baahni kaa kaliya maad u baahan center field marka dhaho dhexday keenayaan. laakiin mushkiladdu waxaa weeye hal mushkilad dhacaysa labadan mar raba inay isku dhagaan. sidaa darteed mar rabaa in centerka keliya la keenee waxaa rabaa waxa halkan ka jira iyo waxa halkan ka jira iyo waxa halkan ka jira isla ekaan yani si isleeg ay u qaybsan spacekii dhan aysan toos iskugu dhagin. haddaba meesha center area ka bedelaya waxaa ka dhigaya eraya space evenly ama space around waa dhigi kartaa. waxay kala duwan yihiin space evenly marka aado si kala qaybsanaya yani space halkan ka jira iyo kan space halkan ka jira aan la joogin sida isla mid tanna tabto kale kan halkan ka jira iyo kan halkan ka jira si isleeg ay u qaybsan yihiin. taqriiban taasna waa intaas. hal wuxuu kala ku daray inaan hoos iga yara fogaado dhahno fiirisan salka xoogaa uu ka fog yahay sidaa darteed kana xoogaa ka fogaya waxaan sameynaa margin bottom waxaan dhahaynaa waa meeqa tusaale ahaan kale 20 pixels iga fogaada waan laga durka soo jirtaas baa laga durka waa la ixtiraamaya markay bixiso. maxaa noo haray choices wuxuu ahaa boxka ay labadan ku wada jireen laakiin mid kasta kan iyo kan waxaa u siinaa magaca choice keliya html-kan aan dib u fiirin aan dhahaa mid kasta kan gaarkiisa waxaan u siinay magaca la yidhaahdo choice baan siinay. choice wuxuu ahaa boxka ku wada jira choice iyo choice mid kastana gaar baa loo yidhahda. haddaba choice aan soo qaadano si aan laftigiisa u bedelno choice laftigiisa aan soo qaadano oo aan iraahno marka koowaad waxaa rabnaa inaan bedelno mid kasta backgroundkiisa inaan bedelaan rabnaa tusaale ahaan kasoo qaado kale background colorkiisa color aan soo doortay background waa 4CA F50 mid kasta colorkaasuu noqdo. haddaba annaga waxaa rabnaa inay naqshadaan noqdaan waxaa u sameynaa sidaa darteed hadda waxaa u sameynaa balac iyo joog iyo in laga fogaado darbiga kulli hadda waxaa u sameynaa marka okay let's go. annaga marka width marka koowaad aan u sameyno annaga width waxa weeye tusaale ahaan 100 pixel 100 pixel ka dhig. sidoo kale waxaa u sameysaa height u samee waxaa ka dhigtaa 50 pixels ka dhig. maxaa kale u baahanahay waxaa u baahanahay inaan dhahno soo yara xood geesahaas fiiqyadaas soo yara xood waxaa u sameysaa border radius u samee waxaana doortaa tusaale ahaan 5 pixels waad jaabin kartaa waxaad ku shaqeynaya 5 pixels kabacdi waxaad tiraahdaa waxaa rabnaa waxa ku dhex jira inaan dhexda keeno qoraalka inaan dhexda toos u keena rabnaa. sidaa darteed waxaa dhahdaa amarka markii aan sameynay saddex amar oo isku xigtay display Felix hadda waxaa isku darmaya markaas total waxaa isku darmaya laakiin labada amar oo kale ay shaqeynaysa justify content center dhexda keenaya waxaa yaa kor anaa dhexda keeno align items center kan alaabtii dhexda timid waxaa noo haray farta laftigeeda inaan qoraalka bedelno. hadda waa caddaan fartana waa weyn tahay sidaas qoraalka aan bedelno intaana ka bixin aan dhaho farta qoraalkeeda aan bedelno intay leeg leeg tahay aan dhahno font weight marka koowaad ama color aan dhahno
colorka aan doorano toos weight aan iskaga doorano qoraalka weight buu noqonayaa haddana waxaa dhahdaa font weight culayskeeda font weightka hoose tag bold dooro bold inay noqoto way waaweynanaysaa fiirso waxaa ku daranaa font size anaa doorano tusaale kale font size anaa doorano tusaale 18 pixels okay تقريبا we're done تقريبا labadan aad isku yihiin hal wax baa ku daraynaa way kala duwan yihiin toos u muuqda markii waxaan ku dhahaynaa waa iska dayaynaa fiiri circlekan iyo circlekan aad buu kala duwan yahay refresh to circlekan iyo kan aad buu kala duwan yahay sidaa darteed inta yaroo ka dhimana aan ku darno waayna aan ugu darayn haddaba aan ku darno oo aan niraahno circlekan waxay wadataa waxaan u bixinay waxa la yiraahdo background my choice markii aan ku daranay background aan ku darno meesha ugu dambaysa aan background siino ama bartaan baa siinay meesha kala ka siinay aan siino background yaan dhihin background ma total shadow box shadow wax la yiraahdo leedahay box shadow baa soo doortay waxa weeye shadow sida loo qoro waa sidaas waxaa qoraysaa dhowr lambar baa qoraysaa pixels 2 pixels haddana 4 pixels kabacdina waxaa qoraysaa kalarka in shadow laga dhigo harkaaga laga dhigo RGBA baa qoraysaa kabacdina waxaa qoraysaa kalarkaaga yani waa 000 yani waa madow caadiya laakiin la yara khafiifiyey 0.1 khafiifinta qabanaysaa hadday si isku bedesho fiirsa meeshaas yep سمعنا ضربة يوي اسمه فيل مركان كقاضي فيل عن كومنت كديو ساسي أهيد مركان كومنت كقاضي وحير مش بدرسة يعني exactly تاسي وكانسة exactly تنا وكانسة هل واحد عرنا يكون دوينين كوان إن إيه عاد يقول دوينين وحمشها يلا أنا عاد يقول دوينين سيدرت كوان أمر سينا أو هل يقفوا هذا ماشي بداية السنة ماشي يعني choices كأن سنة margin bottom hoos ha laga fogaado kaliya korna ha laga fogaadaan ka dhigayna saddex bottom ka dhigayna margin kaliya siinayna margin yana taa ka dhigin margin top naan ku darno margin top sababta margin kaliya daan xataa geesu ku daraya oo nooga falaadaya margin top naan dhahno islaantii 20 pixels xoogaa laga dursan jeedo hal wax waa inoo haray marka labadan hadda muuqaalka exactly toos isku yihiin lama kala garan karo hal waxay kala duwan yihiin oo ah kalarkaasna aan bedelno meeshaan weli madow inoo tahay soo jeed kalarkaan bedelno meeshaan kalarkaa wuxuu ku dhex jiraa meesha yidhahda counter haddaba counter aan siino kalar aan siino waxa ku dhex jira yaani madow iska ahaan aan dhahno kalarkaa siinana waa kii markii aan soo qornay madow iyo xifsiyaan kombiyuutarku taqriiban way isbedesho hadda yaa kala garan kara marka labada yaa kala garan kara inaa bedelay xataa ma dareemi kartid sababtii waa isku mid hal waxay weli kala duwan yihiin teena firi meesha marka ku dhufto tii aan sameynay markii hore yani deemada ku sameynay markaas saa u dultago kow kalarku isku daraya markaas saa u dultago aan waxba ku dhufan haddaa ku dhuftana madow toos u noqonaya madow toos tana tabtoo kale haddaba labada amar aan bixino hadda labada amar toos aan bixin teena firi laakiin waxaa male haddaa dul imaadana isbedeli mayso haddaan ku dhuftana isbedeli mayso haddaa ku dhufto tan iyo tan haddaa ku dhufto wax kalaa meesha ku jira fiiri tan markaa dul imaado cursorkayga suu isku bedelayo bahalkan soo soconaya falaartaas soconaysa isku bedelaysa fiirso waxay isku bedelaysaa gacan wax tilmaamaysa haddaba saddexda amar aan bixin inuu kalarku isbedelo markaa dul imaado mouskuna uu isbedelo mar haddaa ku dhuftana la isbedelo madow toos la isku bedelo madow ma ahana kalarkii aan siinay xeerarka aan siinay intaa in isku bedelo okay waxaan dhahayaa waxaa soo qabsataa kan waxaa u bixinay kan iyo kanba ereyga choice baa u bixinay choice markii la dul yimaado ereygaa uu leeyahay choice hover waa dhahayna hover waxa weeye in la dul yimaado haddaba hover markay dhacdo markii saa loo dul yimaado waxaa rabaa laba waxanay dhacaan dhulkan inay laba wax dhacaan baan rabaa hadda waxa ma dhacayaan laba waxanay dhacaan baan rabaa kow in ay isbedesho mouskayga uu isbedelo oo gacan isku bedelo inuu isbedelo waa kana cursor waa dhahaya cursorkayga inuu isku bedelo pointer far wax tilmaamaysa isku bedelo hadda tan save dhaho fiir uu isbedelo soo jeed total isbedel keenii hore waa kan uu isbedelayaa kan hadda aan samaynana waa kan isbedelayaa hal wax baa ii haray laakiin kalarka inuu isbedelaa rabaa sidoo kale waxaan dhahayaa background
45 A 049 049 hadda fiiri marka waxa dhaca yeah isbedelaya total soo jeed total isbedelaya weli waxaa noo haray haddaa ku dhufto fiiri meesha hadda waa ku dhufto mid dareemaysa waa ku dhufto total waa ku dhufto meesha kalarku sidaan oo kale isku bedela madow caadi u noqo markii lagu dhufto oo kalarku isku bedelo tana tabto kale haddaba waxaan siinaynaa amar kale meeshan waxay ahayd markii la dul yimaado amarka waxa dhacaya hadda waxaa dhahaynaa markii lagu dhufto intuu active ka yahay waxaa dhahaynaa haddaba choice mar labaad laakiin markuu active ka yahay active ka markii lagu dhufto waxaa dhacayaan dhahayaa background-iga hadna bedelaya yaa u bedelaya tii markii aan soo dooranay xagee u ahaa kan u ahaa 0000 ando waa kalarka madow ka agdhow fashion down hadda waxa dhaca fiiraad yeah total uu shaqeynaya hal waxa noo haray markaan inaan dhahno markii halkaa lagu dhufto kuwaanba bedel kabacdina tishaabi anaa soo afaqnay kamana community-ku waxaad doorto inta waxa lagu amrayo waxa weeye javascript haddaba markaynoo keen qaybta javascript-ga waxaan dhamaynay html iyo css waxaa inoo haray javascript kana qorno javascript-ga waxa uu kala qaybaynaa 4 qaybood ama taqriiban 2 qaybood 3 qaybood aan dhehe qaybta koowaad waxa weeye inaan elementigii soo helno elementigii halkan aan ku diyaarsanay html ku diyaarinay si aan wax uga bedeli karno oo aan meeshan u bedeli karno oo aan meeshan u bedeli karno oo aan meeshan u bedeli karno waxaan u baahannahay inaan u wada yeerano sidaa darteed aan dhaho marka koowaad waxa koowaad aan u baahannahay waxa weeye get elements elementskana u yeerno waa qaybta koowaad waxa labaad waxa weeye aan u baahannahay waxa weeye in aan labadan ku xirno wax dhagaysanaya in lagu dhuftayo in kale sidaa darteed waxaan dhahaynaa waxaan sameynaa wax la yiraahdo even listener kuwaan uu dhagaysanaya in click la siiyo dhagaysanaya labadaas uu dhagaysanaya wax kala dhagaysan weyn waxaa noo haray qayb saddexaad waa function computerku wuxuu dooran lahaa go'aaminaya tusaale ahaan waxaan dhahaynaa marka function la yiraahdo kan waa function kaliya computer choice tusaale ahaan oo kale computerku wuxuu dooran lahaa computerka wuxuu dooranayaa function baa qoraynaa noo doori doona kan ugu dambeysana waxa weeye function kale noo tirin doono halkan tirada halkan taala haddii aan gafno function -1 dhihi doona meeshan haddii aan sheegnana +1 oran doona sidaa darteed waxaan dhahaynaa tusaale ahaan oo kale country update function kana waa function sidoo kale function asaas ka qoro sida qoray istamar laas intii sidaas tamar haddaba taa koowaad aan ka bilowno marka koowaad waxaan rabnaa elementskii oo dhan aan u yeelano tusaale waxaan ka bilaabaynaa elementskii choice kuwan u bixinay tan iyo tan u yeelaynaa labadan tan iyo tan u yeelaynaa waxaan u bixinay choice baan u bixinaa markii hadda waxa oo bixinaa magac guud baa siinayna const choices baan dhahaynaa maadaama ay laba ahaayeen choice baan dhahaynaa si ugu yeelaynaa waxaan qoranaa ereyga document baa qoraynaa kaasa dhahaynaa dot element by id dot get element by class name id maaha by class name waxaan siinay class baan siinay la oran jiray choice sidaa darteed hadda magacaasa ugu yeelaynaa magacaan siinaa ugu yeelaynaa oo ahaa choice intaasaan qornay intaan waxay soo celin doontaa oo halkan ku kaydin doontaa array ay ku jidho xubnihii aan u yeeranay maanta laba xubnood baa ku jiro choice waxaa la oran jiray waa tagi karnaa hadda choice waxaa la oran jiray tan iyo tan madaxa meesha ku qoran tahay iyo xarashka meesha ku qoran tahay labadaba waxay wateen class choice la yiraahdo sababta markaan intaas samayno labadan soo qaadanaya u yeeraya wuxuu arkayaa laba xubnood ku jidho wuxuu u kaydinayaa qaab array ah bal fiir hadda tusaale console log aan soo dhigno caadi console.log choiceska hadda aan qornay hadaan soo dhigno choiceskaasaan soo dhigaynaa choiceska maxaa ku kaydsan elementka u yeernay intaas safe dhahaya kabacdina waxaan dhahayaa inspect baan dhahayaa kabacdina waxaa tegaya console-ka tegaya console-ka maxaa yaala fiir laba element baa yaala oo u kaydsan diff choice 1 ah iyo diff choice 2 yaala waana laba shay waxayna u kaydsan yihiin qaab array ah sababta waxay ku jiraan fiir square brackets bay ku jiraan sababta waana intaan niyadda ku haysaa qaab array way u kaydsan yihiin markastoo aad kan u yeerto get element by id na xataa hadduu hal element yahay qaab id wuxuu u kaydinayaa qaab array intaa waana kor qabtaa marka kulligood aan u yeerano taa kaliya maaha kulligood aan u yeerano haddaba waa dhammaynay intii aan u yeernay maxaan u yeernay kow choicekii aan u yeertay labada choice meesha ku jira xarashii madax sidoo kale waxaan u yeertay my choice meeshii la oran jiray waa meeshan kusoo daabici lahayn
wixii anigu aan doortay my choice baa markii usoo bixinay maanta calaa su-aal baa ku daabacan magaca u bixinayna oo kaas wuxuu ahaa meesha calaa su-aal ku qorantay my choice buu ahaa sidoo kale waxa uu yeeray computer choice waa u yeeray sababta dhow waxaa rabnaa computer ku doortan kusoo qoro intaan waxaan ka tirtirno computer ku doortan aan ka tirtirno maxaa kaloo u yeeray counterkana waa u yeertay where's counterkaasna waa kulliga u yeertay waa kuwa marka afartii waa u yeertay afartaasba kuwii hore u yeerayaan waa u yeerid keliya mid kastana element magacaana siiye waxa ku kaydsan wuxuu ku kaydsan yahay elementigiyo area ku kaydsan isagoo area ku kaydsan okay kan ugu dambeeyay marka kan ugu dambeeyay mid aan u yeeray ma ahan bal meeshaan fiiri waxaa fiirisaa magacan counter element yaa wey waa magacan counterka waxaan ku kaydinayaa ereyga counterka variable counter la yihahdo waxaa ku kaydinayaa wixii ku qoran counter elementiga waxaa ku qoran oo ah meeshaan hadda maanta meeshaan zero ku qoran sidaa darteed counterkan waxaa ku kaydsan zero see marka oo la soo baxay waxaa ku kaydsan intaan waxay siinaysa elementiga oo dhammaystiran anna waxaa rabaa waxa ku kaydsan keliya markaan rabaa waxa ku kaydsan waxaan dhahayaa elementiga waxaa qaab area uu kaydsan yahay waxaa yidhi areyga booskeeda koowaad cidda fadhida waa booska zero areyga waxa keliya ku jira inner text waxay ku siinaysaa waxa meesha ku kaydsan inner text waxay ku siinaysaa waxa meesha ku kaydsan tusaale ahaan aan soo bandhigo meeshaas tusaale counter baa dhahaya maanta counter baan dhahaya counter markaa idhi counter waa kana sidaa darteed waxaan sugayaa inaan console ku arko maanta wax meeshii aan kusoo qornay waxay zero sidaa darteed waxaan sugayaa console inaan ku arko zero aan sugaya inaan ku arko okay waxaan samaynayaa waxay geysaa was canceling markin console waxaan sugayaa inaan zero kusoo arko zero kusoo arko kulligoodna mid kasta dad chaisna waxa ku arkaysaa isagoo area ku arkaysaa kana asagoo number ku arkaysaa maadaama aan waxa gudaha ku qoran kaliya soo baxay okay inta markaas kaga baxno taatan ka boodno aan computer choice computer choice la oran jiray aan qorno qaab function aan u qoraynaa waa nida function caadi aan qoraynaa ereyga aan naqaanay function baa isticmaalnaa waxaan u bixinaynaa magac seen waxa weeye computer choice caadi seen maadaama wuxuu computer ku dooran lahaa uu noo gaabinayo computer choice baan siinayna waxba ma qaato waxba aan jiray ma qaato functionkan waxaan shaacinaynaa variable yaraada face baa ka isticmaalnaa waa doontaa kadana waxaan samaynaynaa computerka see uu dooranayaa xarash iyo madax wax random see uu dooranaya waxaa naga caawinaya anaa qaab xisaab u doorano qaab xisaab waxaan u shaqeynaa waxaan dhahaynaa marka tusaale ahaan oo kale const number random oo 0 ilaa 1 u dhexeeya dooranayna see u dooranayna waxaan adeegsanaynaa library la yiraahdo math qaybteeda randomka intaan markaa samaysid intaan mar kasta inta aad qortid computerku wuxuu dooranayaa number random ah oo u dhexeeya 0 ilaa 1 0 ilaa 1 waa daabici karnaa tusaale ahaan waxaan dhigi karnaa console si aan u aragno u fiirin toos ugu aragno muda sameynaya computerku lambarku dooranaya si aan toos ugu aragno waxaan dhahaynaa tusaale ahaan lambarka run idaba sid gadaalna waxaa uga yeertaa functionka uga yeer computer choice function ku yeer haddaba waxaan sugayaa inaan shashada ku arko tii hore iyo cancel log iyo cancel inaan shashada ku arko lambar u dhexeeya min 0 ilaa 1 ana console ku arkaan sugayaa waa cancel asna console kana ku arko lambar u dhexeeya fiiri markastoo aan refresh dhahaa refresh hadaa dhaho lambarka isku dalaya marna hal ma dhaafayo 0 na kama hoos noqonayo refresh wuu isbedelay haddaba qaabada marka xarashii madax u doorana waxa weeye consoleka waxa yaala iga tirtir mar rabaan waxa yaalaan waxaan sameeyaa console kaliya waxa yaala kaliya iga tirtir waxa qaabada aan u dooranayna marka waxa weeye inaan dhahno computer wala markaa dooratay hadduu 0.5 ka yaraado shaashada meeshaas waxaan ugu soo qortaa waxa aad dooratay xarash buu noqonayaa hadduu ka weynaadana waxa aad dooratay madax buu noqonayaa 0.5 kala barkaa ka dhigaynaa sababta waxaan rabnaa 50% ana xarash noqdo 50% ana madax buu noqdo sidaa darteed 0 ilaa 1 yaa kala bar u ah 0.5 kala bar u ah sidaa darteed waxaan dhahaynaa if baa adeegsanaynaa shardiga caadiga ah oo u degno aan dhahno haddii computer waxaa dooratay oo aan ran tiradan u bixinay haddii ay ka yaraato 0.5 haddii ay ka yaraato haddii intaa dhacdo waxaan sameeyaa waxaan dhahayaa wejigii aad dooratay face waxaan ugu talagalay markii hore aan qoranay anaa ku kaydino xarashii madax ku doortay waxaan dhahaynaa lacagtaa tuurtay wejiga ka soo baxay wax buu noqonayaa annagaa go'aaminayna xarash buu noqonayaa haddii soomaaha ay intaa noqon weydo else hadduu lambarkaa dooratay 0.5 ka yaraan waayo oo ka weynaado wejigaa dooratay wuxuu noqonayaa madax buu noqonayaa annagaa caadi u go'aaminayna
maadaama 0.5 ay kala barkii tahayna 50% xarash waa soo bixi doona 50% na madax waa soo bixi doona tusaale ahaan oo kale marka haddaa dhaho tusaale ahaan oo kale computerka waxaa daawacdaa maanta meeshaan dhahayna oo tiradii daawac maanta xarashii madax daawac face daawac face xarash madax mid baa ku kaydsan mar kasta mid baa ku kaydsan tusaale console.log aan dhaho console.log waxaan dhahayaa waxaa daawacdaa face okay aan tagno marka meeshaan aan tagno xarash baa daawacan hadda fiiri xarash baa daawacan haddaan refresh dhaho xarash baa weli daawacan xarash 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 madax xarash xarash madax xarash xarash I don't know xarashka inuu badan yahay moodaa laakiin waa random sida caadiga madax xarash madax madax xarash madax 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 xarash yeah sida random ku shaqeynaya marka intaas sameeyay marka console-kan iga tirtir oo ma baahni totally waxa kaliya oo aan ka rabo waxa weeye inaad dhaho markii aad face dooratid wixii aad dooratay halkaa igu soo qor see u dhahayaa marka halkaa igu soo qor anaa ku soo qoran rabaa aan markaas console-ka fiirin sida caadiga waxa weeye game-ka dheeranay wixii aan marka aan wax doorto computer ku doortay inaan halka ku soo qormaan fiirin madax aad doortay waa iswaafaqan ana madax aad doortay asna madax ku doortay lason baa helay aniga ku soo qormaan rabaa see ugu soo qoraya hadaayato wixii aan sababihi aan ugu yeeranayo kuwaan waxaas ay ahaayeen hadda isticmaalaya computer choice marka muxuu ahaa computer choice wuxuu ahaa meesha computerka lagu soo daawaco wuxuu computerka doortay meesha lagu soo daawaco haddaba waxaan dhahayaa waxaad tagtaa maxaa u bixinay data yeah com choice baa u bixinay com choice baa u bixinay com choice elementigeeda 0 com choice waxay u kaydsan tahay waxay u kaydinaysaa qaab array elements ku kaydinaysaa dadka booska 0 cidda fadhida inner textgeeda waxa gudaheeda ku qoran inner text com choice-ka waxa gudaheeda ku qoran wuxuu noqonayaa waan dhahayaa face wuxuu yahay I don't care face wuxuu yahay face wuxuu yahay bay noqonaysaa خلاص انت شايفنا noo shaqeynaysa marka madax awal meesha maxaa ku qornaa fiiri intaan marka haddaan saaro meeshaan xarash mise madaxa ku qoran laakiin markii aan ka qaado oo aan save dhaho computerku wuxuu doortay halka kusoo qormaysa refresh haddaan dhaho meesha xarash waa inay isbedeshaa marna madax noqda marna xarash madax madax weli xarash madax xarash madax xarash madax taqriiban hadda intaa way noo shaqeynaysaa taqriiban intaa way noo shaqeynaysaa waa keena intaas yani waxaan doorto iyo computerku wuxuu doorto computerku wuxuu doortay toos bay nagu soo qoraysaa intaa kaliya functionkan uga tegayna hal waxaa noo haray functionkan waxaan dhahaynaa waxaa noo soo celisaa return waxaa nagu samaysaa wejigii aad dooratay wuxuu yahay xarashii madax kuu yahay meel kale rabnaan aan adeegsano sidaa darteed noo soo celi hadhow okay functionkan taqriiban computer functionka intaas uga dhamaanayna wax kale ka qori mayno waxaa noo keentaa marka waxaa noo keentaa functionkii labaad oo ahaa kii update garayn lahaa tiradan functionka update garayn lahaa okay waxaan dhahaynaa marka functionkan qaabad kale u qorinaa isla qaabada u qori karnaa wadhi karnaa function iyo function magaciisi iyo brackets ka bacana curly braces iyo wixii uu fulin lahaa laakiin waxaan sameynaa maanta waxa la yiraahdaa arrow function oo see u qorinaa function const baa qorinaa kabacana waxaan qorinaa functionkeena magaciisi tusaale waxaan bixinaa counter update kaliya aan bixinaa counter update aan dhahan waxa u shaacinayna exactly qaabada u shaacin jirnay variableska caadiga ah lamid baa dhahaynaa kabacdi waxaa qoraynaa brackets baa qoraynaa kabacdina waatan function meesha magaca ka helay waa kana lamid baa qoraysaa calaamada coin baa qoraysaa kabacdina function inta kale loo yaqaanay arrow function baa loo yaqaanaa waa isla functionkan waa isla qaabadaas oo laakiin aan la adeegsanayn ereyga function isku wax bay qabanayaan okay function muxuu qabanayaa marka wuxuu update garaynayaa tirada meeshan ku qoran haddaba maxaan dhahnaa see tiradan loo update gareeyaa tiradan waxaa loo update gareeyaa haddii waxa meeshan ku qoran iyo waxa computerku waxa meeshan ku qoran waxaan uu doortay waxa meeshan ku qoran iyo waxa meeshan ku qoran oo ah wuxuu computerku doortay haday iswaafaqaan +1 ku dar haday iskhilaafaanna -1 ka jar خلاص wax uu qabanayo dhan waa intaas saa dadka waa laba if wax meesha yaalo dhan uu qabanayo dhan waa laba if haday saa noqoto saa samee haday noqon weydana saa samee okay waxaan dhahaynaa marka if baan dhahaynaa haddii waxa meeshan yaala see uu sheegaa waxa meeshan yaala waxa uu bixinay my choice baa bixinay my choice waxay ahayd waxa meeshan ku qoran haddaba haddii my choice waa array elementigeeda 0 waxa ku dhex qoran see loo dhahaa inner text baan dhahayaa inner text hadduu kaasi la mid noqdo computer choice wuxuu computer choice ku sameeyey hadduu la mid noqdo choice-ku computer ku sameeyey see u dhahaa asna maadaama aan niri waxaad dooratay noo soo celi
magaca kaliya adeegsan karnaa computer choice kaliya adeegsanaa computer choice haddii ay labadaas isku mid noqdaan maxaa sameeya counter wuxuu la mid yahay counterka rabnaa hal ku darno counterku waa tirada meesha ku qoran hal aan ku darnaa rabnaa sababta waxaan dhahaynaa counter wuxuu la mid yahay isla counterka awal wuxuu ahaa oo lagu daray hal intaas hal lagu daray haddii ay iskhilaafaan soma else baan dhahaynaa haddii ay shardiga la waayo yani waa haddii ay iskhilaafaan waxaa samaysaa isla intaas soo qaado mar labaad soo koobiyeyso koobile bas waxaa dhahdaa meesha balaaska waxaa dhahdaa minus okay intaan functionkan u yeerno functionkan iska tirtirno kanaa toos ugu yeerayaa maanta computer updateka counter updateka aad toos ugu yeerayaa counter updateka toos ugu yeerayaa okay let's see waxa dhaca marka hal wax baa noo dhiman laakiin waxaan arkayaa markaa u yeeray meeshii waxba iskama bedelin zeeradii weli waxba iskama bedelin ama iskhilaafna ama iswaafaqno hadda waa iskhilaafsanaa sababta meeshan waxaa ku qoran calaa su-aal iyo xarash isku mid ma aha waa iskhilaafsanaa sida markasta waxay dhan minus one ka jaro laakiin counterkii ma oran halkaa kusoo qor anaa tiradii ku qornayd baa qaata keliya mar labaad ma oran update garee meeshan wax ku yaalla update garee sababta ugu dambayntana waxaan dhahayaa see u update gareeya waxaan u yeeranayaa counter elementiga dhahayaa counter element ike counter elementiga booskiisa zero waxaa yaala maadaama array ahaa waxa gudihiisa ku qoran oo inner text la yiraahdo waa noqdaa waan dhahayaa counter billahi tawfiiq fiiri hadda minus one buu noqdaa sababtoo waa iskhilaafsanaa madax iyo calaan su-aal isku mid ma aha refresh markaa dhaho haddana minus one kale weli minus one sababtoo xarash iyo calaan su-aal isku mid ma aha weli waa minus one kuwaan ma taaban karo sababtaa weli kuma xirin in la dhageysto clickta in la dhageysto sidaa darteed markastoo aan refresh gareeyo minus one kan iska ahaanaya sababtaa markasta calaan su-aal iyo madax way kala duwan yihiin calaan su-aal iyo xarash way kala duwan yihiin sababta taas waa okay waa intaas halkaa waxaan iska tirtiraynaa laakiin ma rabno functionkan inuu isagoo update gareeyo shaashadda waxaa update garanaya markaan meeshaan click ka siiyo click markaan ka siiyo baa rabaa inay update noqoto hadda waa ku tusiya keliya sidaa darteed iga tirtir waxaan functionkan sidoo kalena u yeero total ma rabo waxaa ii geysaa qaybtii ugu dambeysay oo ahayd inaan ku xirno listener kuwaan ku xirno event listener waxa dhageysanaya clicked anaa ku xirno waxaan kuwaan markaa u yeeranay waxaan ku keedinay variable aan u bixinay choices laakiin waxaa loo keediyey baan qaab array ah get element by class name waxay wax u kaydisaa markaa ugu yeeratid waxay alaabta u yeeratay u kaydinaysaa qaab array u kaydinaysaa sidaa darteed waana dhahnaa waxaan ugu xirtaa mid kastoo ka mid a arrayga even listener waxa la yidhaahdo oo dhageysanaya clickta sababta waana for isticmaalnaa maadaama laba element ay ku jiraan waxaa laba element baa ku jira hadda meeshaan choicekan laba element baa ku jira oo kan iyo kana mid kasta gaarkiisana ugu xirna u baahanay sababta waxaan dhahaynaa I baan dhahaynaa zero ka bilaabata iyo ayadoo markasta ka yar baa dhahaynaa waxay ka yar tahay choices dot choiceska lengthkooda oo maanta ah laba shay keliya ku jirta waa inay markasta ka yaraataa ayada markastana waa anaa plus anaa increment ku sameynaa mid kastoo ka mid a maxaa ku sameeya waxaan dhahayaa mid kastoo choices ka mid a waxaa ku xirtaa wax la yidhahdo even listener choices mid kastoo ka mid a waa kan ereyga u baana add even listener wuxuu sameynayaa wuxuu ku xirayaa event dhageyste eventiga maanta dhegeysanayna waa click sidaas waa halkaan ku siinaya eventiga dhegeysanayna waxaan dhahaynaa waa click baa dhegeysanaysaa haddii ay clicktaa dhacdo maxaa samaynaysaa waatan wuxuu samayn lahaa haddii ay clicktaa dhacdo waxaa samaynaysaa dhahayaa functionkanaa fulinaysaa function arrow function laha qoraya isla kii aan kana okeysiyey fili calaamadda halka ka bilaabata wixii halka ka bilaabada waxaa la yidhahdaa arrow function isku oran arrow function kalaa meeshan ku qorayna waxaan dhahaynaa haddii ay click dhacdo intaan fuli functionkii waa kana intuu fulin lahaa waatana marka koowaad waxaan dhahayaa markaan kuwan click siiyaba waxaa ku qoran halkaa ku qor marka koowaad waxa halkan ku qoran baa bedelaya oo maxaan ka dhigayaa wixii meeshaan ku qornaa haddaa madax taabto halkan waxaan rabaa degdeg inay madax ka noqoto haddaa xalash taabtona degdeg xalash ku noqoto sababta waxaan dhahayaa meeshaan magaca usoo bixiyey maxay ahayd my choice bay ahayd meesha usoo bixiyey
my choice waxaan dhahayaa elementiga koowaad maadaama array ahaan u kaydsanaa waxa gudihiisa ku qoran oo inner text ah waxaa ka dhigtaa baa dhahayaa waxa meesha ku qoran waxaan dhahayaa waxa ka dhigtaa meesha ku dhuftay choiceka ku dhuftay I waxa gudihiisa ku qoran taqriiban hadda waxaan rabaa intaas wax kala shaqeyn meesha kaliya inay shaqeysaa rabaa okay hadda meesha ku dhufto madax buu noqday xarash buu noqday madax buu noqday xarash buu noqday madax buu noqday xarash buu noqday madax buu noqday okay madax buu noqday xarash buu noqday waxa ujeedaa meeshan hadda refresh dhaho anaysan meeshan isbedelayn kuwaana aysan isbedelayn sababtana waxa weeye functionadan markii koowaad waxay isku bedelayeen hadayta waxay ahayd waxaan ku tusayay waa u yeeraynay halkaana ugu yeeraynay bartaana uga yeeraynay bartaana uga yeeraynay laakiin markii waa tirtirnay de maana rabin meeshan uga yeerno marka looma yeerayo functionkan wuxuu ka mid yahay hadda waxaan qorayno dhan inaysan jirin oo kale computer ka soo qaadaya sababta marna functionkan looma yeerin kana looma yeerin sidaa darteed labada meelood mid isbedel yahay hadda u yeeri karnaa marka waxaan dhahayaa marka meeshaan keen marka anigu wax doorto ka bacdi marka anigu saa wax u doorto 1 second ka bacdi baa rabaa computer intuu wax doorto meeshaana in la update gareeyo sababta 1 second ka bacdi say u dhahato salanteen oo kale fiiri marka anigu saa u doorto 1 second buu computer uga dambeynaya marka saa u doorto 1 second buu uga dambeynaya marka saa u doorto 1 second buu uga dambeynaya marka saa u doorto 1 second yani daqiiqad ilbiriqsi isbeddelmay hadda waxaan marayaa waxaan dhahayaa set time out baa la yiraahdo set time out function wuxuu kaa caawinayaa inaad ku xirtid waqti oo aad dhahdo waqtiga ka bacdi hawsha fuli set time out wuxuu qaataa soo furayna waxaan dhahaynaa functionka set time out hadda wuxuu qaataa laba shay buu qaataa wuxuu qaataa wixii kuu fulin lahaa functionkii la rabay inuu kuu fuliyo wuu kaa qaadanaya iyo waqtiga la rabtay in la sugo salaamaanta waxaan dhahaynaa waxaa sugtaa 1 millisecond oo hal second ka bacdi functionka fuli laba wax buu kaa qaadanaya waxa weeye waqtiga aad rabtay in la sugo iyo waxa aad rabtay waqtiga ka bacdi in la fuliyo marka 1 millisecond maanta waa siinay hal second wixii aad rabnay in uu fuliyo hadda siinayna marka waxaan u siinaynaa qaab function aan labaad waxaan adeegsanaynaa arrow function waxa la oran jiray maanta arrow function marka wuxuu sababtaa saa ka fudud kale arrow function ma siinaynaa arrow function waxa ku dhex jira marka function waxa ku dhex jira dhahaynaa waxa u yeertaa functionkii go'aamin lahaa waxaan doortay waxa computerku doortay inay isku mid yihiin ka bacdina update gareyn lahaa lambarkaas aan u bixinay counterka aan u bixinay functionka u yeer function magaciisa muxuu ahaa counter update buu ahaa marka intaas samaysid ka bacdi haddana waxaan dhahayaa meeshan update gareen functionkan wuxuu update gareynayaa kaliya tiradan haddana waxaan rabaa tiradan laftigeeda in meeshan lagu soo qoro maxaan dhahayaa marka counter element u yeer counter elementiga booskiisa koowaad cidda fadhida waxa gudaheeda ku qoran inner text waana la mid noqotaa counterku wuxuu yahay wuxuu doonaa ahaado haddaba waa dhantaa aan aragno let's see waxa meesha ku qoran marka refresh baan niri my gamekani maaha refresh baan niri aan aragno gamekan soo shaqeeyo marka gamekii wuu shaqeyn waayey sababtana waxa weeye markaa functionkan u yeeranay waxaa ka tagnay brackets baa ka tagnay wanaa bracket ka qornaa labada bracket wanaa qornaa hadda aan dhahno lamid aan dhahno okay hadda aan aragno marka waxaan doortay gamekii wuu shaqeynaya madax baa doortay computerkuna madax buu doortay plus 1 bay noqotay maanta xarash baa dooranaya xarash baa doortay computerku madax buu doortay weli sidaas darteed hal baa laga jiray 0 club xarash kala dooranaya isku mid waa iswaafaqanaya haddana plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 waa wataa computerka plus 3 plus 2 plus 1 0 miyuu ii wadaa 2 soo celiya plus minus barna iga gaarsiin kara taqriiban okay haddaba gameka waa intaas gameka hadda aan bilowgi ku tusayey oo kan ahaa iyo kan hadda aan wada samaynay exactly waa isku midkii functionality waa isku mid qaadadii waa yihiin waa isku mid waa game xarash iyo madaxa adiga laftaada gamekan waxaa ka dheeri kartaa inaad ku dhufatid linkiga yaala descriptionka ama faallada koowaad baad taas ugu dheeri kartaa ama mobilkaaga ama computerka ka dul fadhidid markaas isticmaalaysid haddaba mashruuci koowaad aan ku diyaarino javascript html iyo css halkan aynu ku joogo intaan ku bayno mashruuca ku xoga salaamu calaykum